وين ربي بوحدات وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيقة لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan noo socday casharadeenii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay magacyada Ilaahay subxaanahu wa tacaala, oo aan marba magac soo qaadanaynay oo sharaxaad kooban inta Ilaahay nooga fududeeyo aan ka jeedinaynay. waxaan hadda ka hadlaynaa magaca Ilaahay ee ah Al-Caliim. Allah subxaanahu wa tacaala magacyada qurqurxan ee fiican ee uu leeyahay waxaa ka mid ah Al-Caliim, oo ah alle wax walba sii kasaya, ee horey u sii kasayay inta aysan samaysmin, horena u sii kasayay marka ay samaysmaan waxa siday noqonayaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa meel aad iyo aad u fara badan ayay kelmadda Al-Caliim kaga soo aroortay. culimada qaarkood waxay gaarsiinayaan tiro ku dhow ilaa 160 jeer inay quraanka ku soo aroortay, ayadoo siyaabo kala duwan Ilaahay subxaanahu wa tacaala magacyo kale oo uu leeyahay uu ugu sheegay marka uu Al-Caliim soo aroorinayay. waxay culimada qaarkood leeyihiin magaca Al-Caliim oo la socda Al-Xakiim quraanka ilaa 4 jeer bay ku jirtaa. magaca Al-Caliim oo la socda Al-Casiiz quraanka waxay ku jirtaa ilaa 6 jeer. magaca Al-Caliim oo la socdo Al-Khallaaqna quraanka waxay ku jirtaa 2 jeer. magaca Al-Caliim oo la socdo magaca As-Samiicna ilaa 15 jeer bay quraanka ku jirtaa. sidaa darteed Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha uu ka nasahan yahay ee uu ka dhowrsan yahay waxaa ka mid ah jahliga, oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha uu ka dhowrsan yahay oo daatadiisu ka dhowrsan tahay waxaa ka mid ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala jahliga waa ka dhowrsan yahay, wuxuuna ku sifaysan yahay alle wax walba caliim u ah oo sii ogaa, horena u sii garanaya, horena u sii kasaayay. wuxuu kaloo Ilaahay subxaanahu wa tacaala yahay alle waxay la soo dhaafayna og, waxa taaganna og, waxa soo socdana og. sidaa darteed alle subxaanahu wa tacaala ogaalkiisu ogaal aqoon ka imaanaya ma ahan, oo waxaa la yidhahda almacrifa, wax aqoon ku yimid. aqoontu mar hadday tahay waa wax jahli ka horeeyey kabacdina la bartay, laakiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala ogaalkiisa iyo inuu waxaan sii kasaayay waxay ka imaanaysaa inuu mar hore waxaan sii koobay, oo mar hore ay ku jirtayba Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu horey usii garanayo, hore usii ogaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu aada u sharxayaa cilmiga oo horey usii lahaa, in cilmigaas lagu laray oo uu la socday waxyaabihii cilmigaas laftigiisa hagi lahaa, oo ka mid a isla tilmaamaha iyo magacyada Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay. waxaa ka mid a Allah subxaanahu wa tacaala inuu waxaan horey usii kasayey oo hore ay cilmigiisa ugu sii jirtay, waxaa lagu daray mararka qaar inay la socotay xikmadiisa, oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmadiisiina ay qayb ka ahayd. qaaluu subxaanaka laa cilma lana ila maa callamtana innaka anta alcaliimu alxakiim. waxyaabaha cilmiga Ilaahay horey ula sii socday waxaa ka mid a oo qur-aankiisa ku sheegay inay la sii socdeen Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yahay caliimun samiic, watawakal cala allahi innahu huwa asamiicu alcaliim. magacyada kale ama sifooyin kale oo cilmiga Ilaahay uu la sii socodsiiyey, oo markii cilmi waxaan Ilaahay cilmigiisi waayey la yiri haddana lagu sii xiray, waxaa ka mid ah Al-Khallaaq, ina rabbaka huwa al-Khallaaqu al-Caliim. waxaa kaloo ayadana ka mid ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigiisa inay wehelinayaan cizo iyo sharaf iyo guul inay la socdaan. walain sa'altahum man khalaqa as-samaawaati wal-ard layaquulunna khalaqahunna al-casiizu al-caliim. Ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigiisaas waxyaabaha la socda waxaa ka mid ah awood baa la socota, oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala awoodiisii baa cilmiga laftigiisa hagaysa, waana laba magac oo isla socda, yakhluqu maa yashaa wa huwa al-caliimu al-qadiir. waxaa kaloo Ilaahay cilmigiisa la socda inuu waxaan sida uu rabo uu cilmigaas Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sifaysan yahay oo uu ku tilmaaman yahay, haddana ay la socoto fatxi, oo sidaas uu rabo cilmiga siduu rabo haddana cilmigaas inuu u furayo oo uu fatxi ugu bedelayo. qul yajmacu baynana rabbuna thumma yaftaxu baynana bilxaqi wahuwa alfataaxu alcaliim. waxaa kaloo cilmiga la socda Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu khabiir yahay, oo waxaan uu si fiican usii garanayay, horeyna uu sii ogaa. waid asara annabiyu, aayaddii qur-aanka ahayd ee fii suurati taxriim ku jirtay, aayadda markay socoto waxay ku dhammaanaysaa naba'aniya alcaliimu alkhabiir.
سادرتيد إلهي وحيابها قارك أوليه وحكمذا وحل يراهدو علم الغيب وحا نغمقن إنه إلهي سبحانه وتعالى كليس قرنايو وحا نغمقن أو إلهي كليس قرنايانا وحا يقيب سمان وح صوص عضة أو كحرا وقت إيمان دونه وعد قرنايس آن إلهي أهين أي سنجرين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب وحيابها غيبك أو حاكمذا wixii la soo dhaafay iyo waxa soo socda wataan hadda sheegnay wax ku xiran waqti laakiin gadaal ka imaan doona wataan hadda aayadeeda akhrinay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala cilmul ghaybkiisa inay kamid tahay cid garan kartana aysan jirin waxa kale oo kamid ah wax markaas imaan doona oo dhici doona oo aan la garanaynin oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaligiis uu garanayo waxa kale oo kamid ah waxyaabaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala qudradiisa iyo awoodiisa muujinaya sida icjaaska sida adiga aqligaaga xuduudiisa uu leeyahay adiga inaad dareemi karto aqligaaga xuduudiisa dareenkaaga xuduudiisa oo si fiican u garan karto sida darteed culimadu waxay leeyihiin inta badan cilmiga iyo ogaalka iyo waxa la garanayo oo dhan waxa badan waxa aan la garanaynin oo cilmul ghaybka ah waxaaba naadir ah inta yar ee la ogolaado in la ogaado sadarteed waxa Ilaahay la haray ee cilmigiisa khaaska ah kamid ah oo aan unkiisa soo gaarin ba kunjibaar iyo intaasoo jeer ka badan waxa anaga aan hayno waa wax yar oo noo yimid sida darteed Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyaabaha uu aad u amaanay oo aad u dhiirigeliyay waxa kamid ah aqoonta oo aqoontu ay tahay waxyaabaha qofka noloshiisa meel dheer gaarsiisa nolosha dadka oo dhan qayb weyn ka tarta waana waxyaabaha lagu hormaro oo umaduhuna ku hormaraan aqoonta qofkuna uu ku hormari karo dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu doortayna uu siiyo علومت إلهي مركب وأماني سحوق لبون وأماني وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث إلهي سبحانه وتعالى مركب علمي قاس وقفك السيو وحكو قارسية إنو كقار هرمر إنو كقار أود إنو كقار مرك قار حكم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وحيابها كلو علمي لو قار وحاكم إذا قفك إنو بسلاده وعقلي أهان وبسلاده أو جراد أهان وبسلاده أو مسكح ديسو أي نقطة مسكح بسل أو فردة أو دي يعني جاري كرتا قانا ذا كو هبون وأساق مسل حديث كجرتا ذاتك أولنو لهانا مسل حديث كجرتا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين نبي الله يوسف مركا وحيابه إلهي يقول داقيبا كم تهي إنو سيي جرادكي إيا جرشدي وحيابها خلدان وغلا يحان لها وحواناك سنة وكدوران لها إلهي قرآن كيسا وحكويري إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وحيابها إلهي سبحانه وتعالى وآياداس كل شيء وحكم ذا علوم فربضان إني غيب نجيهين علوم تغيب كنجاه وأن نقرنين وإلهي كلية قرنيه وحكم ذا وحل يراهدو غيب السماوات عرك وحكم قن أنك أقون مليهن أنت يرتو عرك أن كأرجنا كلية بالغيها بين أن كأركينه وحنا أرجنا حدقو waxaan aragnaa wax fara badan oo cirkaas ka wada buuxa roob baa ka yimaada daruuraan aragnaa makhluuqaad baa intaas ku dhex nool oo marna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku dhex uumay qaar baa anaga naga tagay oo cirkaas xaqiisa aadaya soo noqonaya waxaas oo dhan cilmi aan naqaano ma ahan laakiin waa cilmi Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu garanayo cilmiga labaad oo aayada ku qeexan waxa waaye inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala garanayo waxyaabo fara badan oo qayb naga ah oo naga qarsoon oo dhulka ku hoos jira khayraadka dhulka ku hoos jira ma naqaano sida uu keedsan yahay ma naqaano dhul gariirka markuu dhacayo ma naqaano sida dhulka u sameeysan yahay iyo sida uu isugu dhagan yahay ma naqaano in yaar oo dadka cilmiga fara badan la siiyay aanu malaynayna aqoon fara badan in leeyihiin ba in yar oo kamid ah cilmul ghaybki dhulka la xiriiray baa laga ogolaaday laakiin inta aan garanaynin baa ka badan cilmiga saddexaad oo aayada lagu sheegay waxa waaye cilmu dhaahir waxa ku muuqda adiga waxaad arkayso oo dadka hortooda aad ka arkayso khalaa'iqda hortooda aad ka arkayso ayada laftigeeda waa kooban yihiin laakiin intuu Ilaahay ka garanaya badan waxa kale oo intaas ka sii darsoon wax kasta oo qarsoon oo ka mid tahay adiga waxa kugu qarsoon cid garanaysa malahan laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu garanaya sadarteed Ilaahay wuxuu leeyahay inni a'lamu ghayba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wuxuu kale Ilaahay quraankiisa ku yiri inna Allaha 'indahu 'ilmu as-sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير علماء وحي يراهدين آيادان waxaa ku jira culum aad u fara badan
oo tiradii ka batay qaarkoodna 8 ay gaarsiiyeen. cilmiga koowaad waxa waaye goorta saacada qiyaamaha ay dhacayso ilaahay baa gaar u garanaya, cid kale oo garanaysa ma jirto. waxa kale oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala gaar u garanaya markuu ilaahay khalqigiisa waraabinayo oo roob u soo deynayo oo ay noolaanayaan, ilaahay un baa garanaya. wuxuu kale oo ilaahay garanayaa waxa uurku jirta ah oo arxaamta ku jira, waxay noqonayaan, goortay galayaan, siday ugu jiraan, siday ugu nool yihiin. waa cilmi ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaligiis u garanayo. wuxuu kale oo ilaahay garanayaa waxa hadda la yiraahdo cilmu nafsi, naftaadan waxa ku dhex jira iyo siday u nooshahay iyo siday u shaqeyso iyo qaybahay tahay iyo waxa ku sameysmaya iyo siday u fakarto, ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa garanaya. wuxuu kale oo ilaahay garanayaa waxa soo socda aan waqtiyeysnayn oo anaga aan garanaynin, goortay dhacayaan, qoorta imaan doonaan aadan garanaynin. wuxuu kale oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala garanayaa wax kasto aqoon oo geerida la xiriiro, goorta dhimanayso, saa u dhimanayso, khalqigu siday u kala dhintaan, noocyada u kala dhintaan, qolo walba markay naftu ka baxayso siday uga baxdo. waa cilmi ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaligiis uu garanayo. wuxuu kale oo ilaahay garanayaa wax walba oo u baahanba in la ogaado, wax walba oo u baahan in laga warqabo oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu garanayo. sidaa darteed cilmiga ilaahay waa qaybiyey oo qaybo kala duwan oo aad iyo aad u fara badan buu ka yeelay. qayb dadkoo dhan baa loo wada ogolaaday oo inay wax wada bartaan la faray oo la yiri wax barta, wax akhrista. cilmigaasna waa cilmi khalqiga ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu wada ogol yahay qof walba khalqigiisa kamid ah inuu wax barto. ilaahay waa kan dhahaya arraxmaan callama alqur'aan khalaqa alinsaan callamahu albayaan. waxaa kaloo jira khalqigiisa qaybo kamidana inuu siiyey awood ay culumta gaar ku bartaan oo uu si gaar u baray. waxaa kamid ah sayidina alkhadr oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu siiyey cilmi u gaar ah oo nabi muuse uu uga noqdayba khabiir tusaayo hadba waxa soo socda oo dhacaya. mana ahan inuu cilmi qeybka ogyahay, xog buu hayaa, cilmi buu hayaa, waxa ay sameyn doonaan oo barita meeshay mari doonaan, waxa yaala, waxyaabaha soo socda, qaybo ilaahay u furay oo cilmi ah buu haystaa. waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa ta'aala nabiyadiisa qaarkood uu furay cilmiyo ayaga u gaar ah oo nabi Suleymaan wuxuu u furay inuu shimbiraha la hadli karo. waa cilmi ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu asaga siiyey. nabi daawud asaga duruucda samaysan jiray oo gacantiisa ku shaqaysan jiray oo samaysan jiray. nabi yacquub cilmiyada uu ilaahay siiyey waxaa kamid ah inuu garanayo wax walba meesha laga galo, albaabka magaalooyinka laga galo, hadalka meesha laga galo, wax walba oo meelaha laga galo iyo meelaha laga baxo. culumta uu nabi yacquub ilaahay siiyey kamid tahay. wiilkiisa nabi yuusuf ilaahay culumta uu siiyey oo kamid ahayd inuu riyada fasiro, oo kamid tahay inuu garanayo dhaqaalaha sida loo maamulo, ay kamid tahay sida uu garanayo waxa soo socda oo jiilasha soo socda sidii dhaqaalaha loogu hagaajin lahaa oo nolosha loogu toosin lahaa. Taaluut asagana wuxuu ilaahay siiyey inuu u fidiyey cilmigii, uuna u fidiyey jirkiisina uu fidiyey. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. نبي محمد عليه الصلاة والسلام isaga cilmi fara badan ba ilaahay u furay, waxyiga ilaahay u furay, waxyigaasna ilaahay wuxuu ku siiyey cilmi aad u fara badan. in huwa illa wahyun yuuxa callamahu shadiidul quwa. ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka wax fara badan buu asraar ah buu nabi maxamed siiyey. nabigana calayhi salaatu wasalaam waana la wadaagay oo khalqigiisu la wadaagay, quraanku nagula wadaagay, hadalkiisu nagula wadaagay, waana na soo gaareen. saa darteed ilaahay subxaanahu wa ta'aala nabi maxamed culum fara badan buu siiyey oo ka mid tahay xataa calaamaatu saaca, qiyaamuhu siday u dhacayaan, dadku siday u noolaanayaan, uur ku jirto maraaxishay maraan. cilmiyo fara badan oo naga qarsoonaabaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay u soo dhiibay oo quraankiisa ugu sheegay ama axaadiistiisa nagu soo gaartay. waxaa jira culum dadka qaar ayagana mamnuuc ka ah oon loo ogolayn inay bartaan ama loo ogolayn inayba isticmaalaan. waxaa ka mid ah nebiyada looma ogola inay gabay dhex galaan ama ay gabay sameeyaan ama ay gabyaanba ama ay ku mashquulaan. wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbagii lah, oo loola jeedo cilmigan lamana barin, mana mudnaba inay bartaan maadaama uu nebi yahay. culumta qaar ma mudno. saa darteed waxaa adiga qofka muslimkaa lagaa rabaa culumta aad u arkaysaba inaadan mudnayn inaad barato ama sharaftaada dhaawacaya ama anshaxa dadka qaar ay u arkayaanba hebel waxaasuu yaqaana, haddii ay sumcadaada dhaawacayso inaad faraha ka qaado. laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ambiyadiisa gaar ahaan nabi maxamed waxyaabaha uu u diiday ama uusan barin, uusan u furin waxaa ka mid ah inuu gabay tiriyo, waayo gabayga martabad kalaa loogu talagalay, dad kalaa loogu talagalay. alimaam axmed ibnu xambal wuxuu ku sheegaa cilmiga ilaahay inay tahay khasnad uu ilaahay subxaanahu wa ta'aala haysto
oo qof walba oo khalqigiisa ka mid ah inta uu ilaahay uga garto uu khasnadaas uga daraayo sidaa darteed waxaa lagaa doonayaa ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisa iyo awooddiisa adoo yaqiinsan adigana inaad ku dadaasho aqoontaas aad hesho marka koowaad inaad aqoon wanaagsan kororsato inaad waqti geliso marka labaadna aqoontaas inaad qaybiso oo dadka aad wada gaarsiiso aad waqti geliso والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وذا تغنيني إساقا ودودا انتشيقا لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني وحبا كما غرسونو قلبيقو وهن هدو يشو وحي وليبا وواضح إيو واسع ماليناهي الوكيل مغا إيسو ووارسان دي مانا